عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونسنت ويا سو dhawaada oo markale muuqaal kale halka daawan sano buur dhaamiliyana xamdi cabdilaahi oo barnaamijkan khayruunta dadweynaha heer burcadii jiraan weydiinta su'aalaha joogtada maanta dadweynaha heer burcadii weydiin doona maadaama Soomaaliya weligeed hore aanay qabsanin doorasho hal iyo qof Soomaaliya ma ku dayn kartaa Somaliland oo ma qabsan kartaa doorasho qof iyo coda daani weligeed doorasho noocaas ka dhicin Soomaaliya war horta dhawaay baan kulay horta niyo team 124 waxaan leeyahay warna madaxweyne inta horta ku mashquulsantahay doorashada Somaliland waad bar hore waxaan dalkan tagay ee dalka carruurtaada wadanka ka qabanayay adoo team 124 inaad tiraado Somaliland baa ku dayanaya dhawarta sharaf banoota inaad ugu dayataan laga waxaan leenahay dadkina hagaajiya aad bad ma sataa suuragal ma tahay kala taa ما يصير تقل معها واي سببتها كنت هاي ولي قد بين قدامك كتيضي لكن صورة تقل ميس سرقس أرن صورة تقلية معها دور شيء سؤال لانك عادنا كده ما يسمع مقدشو واسطة لا مس ورقة كتو شعب ما عادين كران ما عادين كران سيدي سؤال أنا عاد اسمه عادين كران هذه يا عاد ما كران تزدي الصومالي ما قاعد يسوي قد قاعد ميسورة هذا كنت ينكر ميس ها ما قاعد يكرسد دورش قفي عتها ما قفصن كرت ما قفصن كرت وما داعي صد مولي به ما قفصن كرت بالله ها هذا ما سنت ولا وقتنا الصومالية doorasho oo hal qof iyo hal coda ay gali karto maadaama weligeed hore uga dhicin horta waa su'aal fiican baad keento aad baad mahadsan tahay horta dadka muqdisho iyo deegaanka ku nool runtii dadka shacabkii waa dad wanaagsan laakiin wadanka waxa waale dadka siyaasadda iyo madaxdoonka muqdisho markaad eegto xagga waxa ka xigta magaalada leedo afgooyi xaggana balcad baa ugu soo xigta ninka muqdisho xukuma afgooyina ma gaadho balcadna ma gaadho war haddaan afgooyina gaadhayn balcadna gaadhayn isagoo hawada maro mooyaane horta muxuu qaban karaa waa aqliga hal isweydiiyo waa inuu ninka horta dhulka mari karaa nabadgelyo ku mari karaa cid kol kalsoonna uu helaa laakiin anigu waxaan qabaa doorashada uu sheegayo waa riyo mid suura galaysa aqliga galaysana maaha anigu saasaan aaminsanahay waynuna arki doonaa iyo sidna igama aha in fact laakiin waa xaqiiqii muuqata hadda ma garatay marka aniga saas igula muuqata suuragal ma tahay in Soomaaliya weligeed maadaama ay qabsan karto doorashada Somaliland hal iyo qof ma qabsan karto Soomaaliya dad wada socda ma waa dad kala googo'an waa dalaan nabadgelyo ka jirin marka doorasho qof iyo coda ma qabsan karaan baan leeyahay anigu Somaliland Afrika de horumarka ay gaadhay Afrika wax yar baa gaadhay oo ayaa gaadhay ama ururo iyo madaxweyne isku sidkan ha qabsato ama qof iyo cod ha qabsato Soomaaliland waa dal horumaray in lagu daydana haday ku dayan karayaan oo ay talaabadoodu gaarsiinayso sidaynu yeelayo shan u dhaqano ha qabsadaanba laakiin waxaan aaminsanahay inay doorasho hal iyo coda qabsan karinba mid isku sidkan daaye suurtagal aan ahayn waana sidii salaamaya bahda saxaafadda iyo Somaliland waxaan u arkaa walaal de Somaliland wadal horumaray doorashooyinka Somaliland ka qabsooma dalkan yar bay ka qabsoomaan berigi hore waxay leesaari jiray doorashoon isku sidkan ba ka dhici jiray imikana waxa bay gaadhay heer ururadii iyo doorashada madaxtooyada la isku sidko waa wax caalamka in yar mooyee aanay qabsan karin weeyeen marka Soomaaliya dawladba ma ahan oran kara waayo dad doorasho hal qof iyo hal codiba weligeed kama dhicin in yar baarlamaanka baa de u codaysa madaxweyne dad yar oo tirsan oo baarlamaanka qof ay doorteen iyo wadan doorasho soo jireena oo imika maraysan doorashoon isku sidkan ay qabsadaan dal imika maraya inuu qabsado caalamka oo dhan baaba inay ku deedaan Somaliland mudane Soomaaliya ku deeto Somaliland waanu soo dhaweynayna inay nagu daydaan wadad walaaladaya inay dawlad noqdaan waanu doonayna annana dawlad la siman baanay anagu daydaan waxna naga bartaan inay Soomaaliya waqtigan waxay Somaliland ku deeto ma u suura galaysaa qaabka Somaliland doorashada qof iyo hal coda oo nidaam maxay heedayaan oo dhibaato ay dhicin oo qabsoonto inay Soomaaliya u dhici karto ما waxaan ku dhici karayn Soomaaliland waxa jooga shacab isjecel dawladnimadu waa shacabkeedu gamcuhu haystaa waa midnimo waxaan ku wuri wax alaala wixii carqaladeynaya nabadgelyadooda ummadda reer Soomaaliland waa ka hal qof qura ummadda Soomaaliyana waxaan ku wuri qofku suuqa iyo meesha iyo gurigiisa iyo hudheelka iyo madaxweynuhu halkan uu fadhiyo filla Soomaaliyeed uu fadhiyo dadka yar ku doorteen ma ku nabadgelaysaa bisla wadnuhu farta kaga yaabeen walba marka dalka nabadda iyo dalkan colaadu ka taagan yihiin rabshadu ka taagan tahay
mar layba inaanay u suurto gelin baan malayn doorashada Soomaaliland ka dhacayso ka dhici meeshan uu qaba marka wax kasta oo Soomaaliland ku dhaqaaqdo Soomaaliya iyo dawladaha kale ay uga hareeraysan mid walba way naga dayata waligeed bay naga daynaysaa gobol Soomaaliland ku daynaysaa Soomaaliland waa lagu daydaa waxay leedahay horumar iyo ficil lagu daydo yeelaado way samaysaade marka waa aad baa lagu daydaa Soomaaliland maalin walba marka inay waqtigan dawladda weyn ee Soomaaliya ku dayto Soomaaliland adiga sakrad waxaan wala taayday waa ugu dayanayaan salaaba ay gaari waayeen yaanu qaadnayo way ugu dayanayaan dabad marka sidaas ay muhiim ah inuu ku daydaan ay wala suurtagal ma Soomaaliya lagu sheegaya waa feeg walaal wax jira ma meherad baa la isku doortay guri dhexdii taandha marka inagu taandhooyinka caafimaadka dhignaayo dadka xanuunsanaya marka suurtagal ma walaal wax feega bay Suleymaanaya ku sheegaynay suurtagal ma habade suurtagal horta way noqon kartaa way suurtagal kartaa ma garaysaa laakiin mar walba Soomaaliya anaga aan role model noqono Soomaaliland ahaan aynu rajeynaa ay wax walba naga dadaan process kale naga dadaan ma rajeynaa waana wax fiican oo aday nagu dadaan anaga haada dawladdu ku ambaliyana waxaan leenahay mar walba saan ugu dadaan anaga soo dhaweynaa madaxweynuhu taa ilaahay ma been ugu sheegay meesha taal waxa weeyaan meeshan horta waa isma raacsana meeshana codna mideen baa lagu ridaa madaxweynaha ku leeyahay dadka beenaa u sheeginay xildhibaanadii qolku ku xareeso xildhibaanada qolkeena ugu xareeyo wixii kale de walideena iga madaxweynaha labada boqol xilna qolka ku xareeso meesha qolun baa la isku xareystaa meesha Soomaaliland ma israacsan waa meel midaysan kiyari ka ma israacsan marxalada madaxweynaha madaxweynaha qolka ugu xareeyo dhalinyarada gay ugu noqon kartaa mid Soomaaliland uu gaariga Xasan Sheekh wiilgii baanu gaaray doorashada ma qaban karaba waa wax iska macmalaha ma codayn karo oo inama gaari karaan kullu midda Soomaaliland ku daballumin taada ku dhilde nacsan ku dhaalay wala suurtagal ma aha waxay doonayaan inay gobolada waqooyi ka soo noqdaan doorashada qabsan karaan markay gobolada waqooyi noqdaan ay qabsan karaan doorashada qof iyo codad laakiin hadda ma dhacayso hadda Kismaayo go'aan Puntland baa go'aan gobolada badan kale oo go'aan marka system khaldan ku socdaan sidoo hore loo qaatay malaha xilwaanadoodii waa loo qaatay xilwaanadoodii coday balay waqtiga suurtagal ma aha afshaab marka suurtagal ma aha may walaale Soomaaliya ma ka dhici kartaa doorasho meeshu doorta meel labadeed ma aha walaal ma garat meeshu markay nabad tahay baa doorasho dhacdaa marka waxaan leeyahay markaad nabad noqotaan marka doorashada hadii dhacna waqti ma suuragelayso shabaab ba haysata shabaabta horta Ilaahay ka qabto marka shabaabta iska xasuuqaan marka ma doorasho kali garaan laakiin ta ka horeysa ma gali karaan sidii hore wataan kale doorashada iyo waxa wallaahi horta waxan waa wax loo soo tiray tacbeer ma wax iska yimid hadii la yiraahdo waanu qabsanaynaa wayna dad u dhintaan tan waa loo soo dhintay waa loo soo burburay reerata ciyaar lagu sameyn karay doorasho midna suurtagelayso horta dalka midee dad wada jira noqda wax dad go'aan wada yeesho is aamino isku kalsoonaada markaad noqotaan ayaad wax oran karaysaan isku kalsoon laakiin intay haysataan leedin marba nin maamul ka taagay caalan uu leeyahay warniyo anigu waxba idinma Soomaaliya ma ogoli adeero ma qabsan karaysaan doorasho ma suurtagelayso hadday doonayaan inay qabsadaanna war horta isfahmo horta madaxweyne adigu xaaladda dalka dejiyo oo madaxda maamulka iskugu yeedho waxay rabaan noo qabo waxna la socodsi laakiin inta maamuladii ka saastaada tiraado waxbaan qabanayaa adeero ma suurtagelayso tan waa odayaasha gobolada Soomaaliland ku nool way shireen way wada hadleen meel bay iskugu yimaadeen garbay meel ku wada gooyeen kartiina doorasho noqotay doorashadii waa lagu ceel baxay Soomaaliland laakiin odayaasha inta ka timaadaan madaxdiina dalka haystay hadii aad isku haysataan doorashada suurtagelmayso walaal mid baa jirta waxay marka hore horta in la riyoodo in la seexda ka horeysa ninkana dadka marka uu horeysa maalin kasta been ugu shaqeey beentiisa hore dadku qaadi kari laayihiin kawrde marka waxba yar dadka been ugu sheekeynina in waxaad ku tiraahdaa intaad waxooda halka u dhigto aad tiraahdo waxba idin ma hayraye doorashada idin ma qabanaye oo taas qaatina oo iska hordota ku dhe kawrde waxa weeyaan Soomaaliya
soomaaliya Soomaad arag inta Soomaaliya jirto ee qof af Soomaali ku hadla uu nool yahay doorasho ka dhacayso qof intuu kuyuu soo gala ama hooyo soo gasho waraaqsa lagu ridaa kama dhacayso aniga ma dhayga qor sagal ma noqonaysaba kawdhade waa halkaas ay timo ka soo baxaan in Soomaaliya intuu qof bilaadan soo istaago waraaqir sida ugu rido qof maxaan ku dhahday doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo waa taas timo ka soo baxaan ma suurtagal ma wara noqonaynba kawdhade waayo dadka marka hore been baa lagu dhisay beenna waa lagu dhaqay beenta ilaa meesha laga saaro mooyaan runi timaado mooye ma dhacaysa taas eniga waxaad ku tiraahdaa dadka halugeyna ku dhe horta marka hore suuragal way tahay suuragal waxay ku tahay wixii wanaaga la iskaga dayanaya in gaga dayadaan dawladnimo ahaan ila dawlad qaran laba in la nagu daydaa loo baahan yahay waa suurtagal koowde suurtagal ma aha lama oran karo inay nagu daydaan innagana way noo teetan iyagana waa waxbarasho ay dib u bilaabeen oo buug tiimka bilaabeen marka waxaan leeyahay haddii aad si sax ah ugu dadaalso kulliba ku dadaali meysaan ya tafadal way soo dhaweynaa ban bilaan